بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الصحافة ما سنتهين شرارك إسدبا جوجا هاي بريها وحكو صاب سنعين مرحلة كلا جوركا runtii madasha murashaxiinta waxay aad iyo aad uga xun yihiin in waqtigii dawladda loo asteeyay uu dhamaaday iyadoon doorasho dhicin laguna heshin. xilligan waxay ahaaday madaxweynaha doorashadiisa kale inay dhiman tahay ama ugu yaraan heshiis lagu yahay habka doorashada iyo waqtiga. qodobka labaad waxay ahaaday madasha midowga murashaxiinta maadaama ay yihiin dad xilal waaweyn dalkan ka soo qabtay haddana u taagan xilka madaxnimada inay qayb ka ahaadaan wada tashiga xalinta khilaafaadka ka jira habka doorashooyinka. qodobka saddexaad in dad badan oo kale oo saamilay ah oo ay ahayd inay ka qayb galaan aan laga qayb gelin, oo ama ay ka mid yihiin guddoomiyaha aqalka sare iyo deegaanka uu mithalo iyo dadka uu mithalo iyo ururada bulshada iyo dad kaloo mudan inay qayb ka ahaadaan shirka. qodobka afaraad haddii uu dhammaaday muddaxileedkii dawladda baarlamaanka waa soo dhammaaday, madaxweynaha xilkiisuna wuxuu ku egyahay 8 February oo saacada ay naga xigaan. marka maadaama uu dhammaaday waqtigii loo idmaday dawladda, wax walba oo tilaabo ah oo loo qaadayo hanaanka doorashooyinka waa inay ku beesgareysnaadaan heshiis siyaasadeed oo ka turjumaya rabitaanka dadka Soomaaliyeed inuu ku beesgareysnaado. maxaa yeelay dawladdu waxay ku dhisan tahay sharci iyo waqti, waana soo dhammaaday. qodobka ugu dambeeya inaysan aqbalaynin muddo kororsi muddo kororsi inaysan marnaba aqbalaynin. wax tilaab kastoo la qaadayana inay ahaato mid ku timaada wada tashi iyo wada ogol oo ah heshiis siyaasadeed. aad iyo aad u mahadsantihiin. maanta ma ku ogolaadahay waa maasantahay magacayga waa soo qaysana waxaan ka tirsanaa Gate TV. waqtigii doorashadu waa dabcan ay dhici lahayd waa la joogaa. sida aad sheegaysaana idinka iyo dawladda dabcan la iskuma dhowo, marka haddii doorasho ay dhici weydo maxaa idinka idin heshiisay? waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah. waxaan u malaynayaa inaad arkayseen maanta inaan bilaabno wada tashiga bulshada. waana soconayaa. waxaa loo baahanayaa gogol Soomaaliyeed oo Soomaalida isugu timaado ka tashato doorashada iyo sida loo qaban karo. marka anaga hadda waxaan bilaabnay wada hadaladii qaybaha bulshada, odayaashii aan maanta la kulannay. waana wadi doonaa inaan talada aruurino sidii mataqaanaa tala toosan oo loo midaysan yahay oo keeni karta in hore loo socdo ay u imaan lahayd. waxaan malaynayaa su-aashaasaan ku joojinaynaa. aad u mahadsan. sida idin muuqato markaan